bilowga filimka waxaan aragnaa Shucayb oo ka shaqeeya taxi. Shucayb waxaa la jooga saaxiibkiisii hore ay ka wada tirsanayeen gaangiska. wuxuuna ku leeyahay Shucayb waa inaad dib ugu soo laabataa shaqadaadii hore. Shucaybna wuxuu ka diidayaa inuu dib ugu laabto shaqadiisii hore. wuxuuna u sheegayaa inuu ku kalsoon yahay shaqada uu hadda u hayo. Shucayb saaxiibkii wuxuu u sheegayaa in uu ku helayo shaqadiisa hore lacag aad u fara badan. wuxuuna ku leeyahay taksigan kama aad helaysid lacagtaas. Shucayb saaxiibkii wuu ka diidayaa midda ah inuu go'aankiisa u qaato. wuxuuna ku leeyahay waxaan ku kalsoonahay shaqadeeda taksiga. Shucayb saaxiibkii wuxuu arkayaa boolis. markuu booliska arko wuxuu bilaabayaa inuu booliska ka baqo asagoo gaariga dhexdiisa ugu dhex dhuumanaya booliska. booliska waxay dhaafayaan gaariga Shucayb. kadib wuxuu ku leeyahay Shucayb saaxiibkii waxaan rabaa inaad i caawiso. Shucaybna wuxuu ku leeyahay maxaan kuu caawinayaa. wuxuuna leeyahay waxaan rabaa inaad ii qariso jaakadkani. marka ayuu ku leeyahay maxaa ku jira jaakadka, waa inaad i tustaa. Shucayb wuxuu arkayaa jaakadka in ay ku jirto daroogo wuuna xanaaqayaa. saaxiibkii wuxuu ka codsanayaa in maalmaha inuu u sii qariyo jaakadkani. waxaa dib ugu soo laabanaya booliska. saaxiibkiina wuxuu ku leeyahay booliska ayaa igu soo laabtay. saaxiib waa inaad ii haysaa jaakadkan, aniga ayaa kaa soo doonanaya. Shucayb saaxiibkii wuxuu ka digaya gaariga kadibna wuxuu bilaabayaa inuu ka carara booliska. Shucayb wuxuu ka soo tagayaa meesha asigoona imaanaya gurigooda. Shucayb waxaa guriga kula nool hooyadiisa oo xanuunsan. aad ayaan u jeceshahay, asigana wuu jecel yahay hooyadiisa. Shucayb hooyadiisa mar walba waxay jeceshahay wiilkeeda in ay farxad ay siiso. asigana hooyadiisa aad ayuu uga taxadirayaa maadaama ay tahay qof xanuunsan, waana ka soo tagayaa. Shucayb asigoo jiifa guriga saaxiibtiisa ayaa waxaa laga soo wacayaa taleefanka marka oo qabto waxaa loo sheegayaa inuu gurigoodii dabka kacay una gubtay gurigooda. Shucayb oo soo cararay wuxuu soo qaadanaya gaarigiisa wuxuuna imaanayaa gurigooda. markuu imaado wuxuu arkayaa dadka xaafadda oo la tacaalaya dabka si dami lahaay. Shucaybna wuxuu bilaabayaa dadka inuu u mahad celiyo maadaama ay damiyeen dabka ka kacay gurigooda. dadkana waxay ka tagayaan meesha. Shucayb wuxuu soo galayaa qolka hooyadiisa ee ku jirta ayadoo la joogto islaan kale. Shucayb hooyadiisa waxay ku leedahay maxaa gacanta kaaga dhacay. wuxuuna u sheegaa dabka inuu taabtay. Shucayb hooyadiis aad ayay u jeceshahay. wuxuuna weydiinayaa Shucayb dabka siduu ku kacay. hooyadiisna waxay u sheegaysaa in ay feelo isticmaalaysa dabkan sidaa uu ku kacay. Shucayb hooyadiis wuxuu ku leeyahay hooyo aniga la'aantii waxba samaynayo ku leeyahay. hooyadiis ayuuna bilaabayaa inuu niyadda u dejiyo Shucayb. oday ka mid ah dadkii dabka damiyey ayaa alaabta gudaha ku soo tuuriyay. waxaana ku soo cararay Shucayb asagoona ku qaylinayo ka saaraya guriga. Shucayb waxaa soo wacay saaxiibkiisii gaangiska asagoona weydinayo jaakadkii ugu jirtay daroogada. Shucaybna wuxuu soo tabiyaa jaakadkii wuxuuna bilaabayaa inuu raadiyo jaakadka Shucayb. wuxuuna ogaanayaa jaakadkii in meesha oo dhigay uu ka la'yahay. kadib wuxuu u imaanayaa hooyadiisa asagoona weydinayaa halka ay dhigtay dharka qolkiisa ku jiray. waxayna u sheegaysaa in ay gelisay khasaaladda. wuxuuna ka soo raadinayaa dhanka khasaaladda. wuxuu ka waanayaa khasaaladda. wuxuu ku leeyahay kuma jirto. hooyadiisna waxay leedahay ma aqaan aniga meesha ayaan geliyey. gaangiskii oo weli taleefanka ku jira ayaa wuxuu ku qaylinayaa Shucayb asagoona ku dhahaya waxaan kaa rabaa jaakadkayga igu jiray daroogada, aqlina kaa siisan maayo. Shucaybna wuxuu leeyahay gurigeena dhibaato ayaa ka dhacday, dab ayaa ka kacay, sidaa darteed jaakadkii daroogada kugu jiray weli waan la ahay. gaangiskana wuxuu leeyahay midaasi kaama qaadanayo ee waxaan kaa rabaa jaakadkayga igu jiray daroogada. Shucaybna wuxuu ku xanaaqayaa gaangiska saxaabtiisa wuxuu u sheegayaa in uu rabo inuu tago guriga Shucayb. waxayna imaanayaan guriga Shucayb. markay imaadaan waxay ku qaylinayaan Shucayb. Shucaybna wuu xanaaqaya oo wuxuu kala tuurayaa gaangiska. wuxuuna ku leeyahay sidaan migula dhaqmi kartay. gaangiskana wuu xanaaqaya wuxuu la soo baxay bistoolo. wuxuu leeyahay waxaan kaa rabaa jaakadkayga daroogada, aqlina kaa siisan maayo, waa inaad i siisaa daroogadeeda. Shucaybna wuxuu sheegaya waani wuu ka aamusayaa. gaangiskana aad ayuu u qaylinaya wuxuu leeyahay wixiiga waa inaad siisaa. Shucayb hooyadiisa ayaa meesha ka soo muuqanayso. Shucayb wuxuu ku leeyahay hooyadiisa hooy waa inaad guriga gashaa. Shucayb hooyadiisa waxay soo aadaysaa gaangiska xaggiisa waana kala tuuraya Shucayb hooyadiisa gaangiska. Shucayb oo soo cararaya gaangiska ayuu ku leeyahay hooyadiisa sidaan kulama dhaqmi kartay. wuxuu u sheegay hooyadiis inay xanuunsan tahay mana ahan inuu sidaan kula dhaqmo. gaangiskana wuxuu bistoolada ku taagayaa Shucayb hooyadiisa. Shucaybna aad ayuu u xanaaqayaa. gaangiska wuxuu bistoolada afka gelinayaa Shucayb hooyadiisa asagoona u sheegaya wiilkeeda waa inuu u keenaa jaakadkiisa daroogada. haddii uu u keeno waa in oo ayaga dhan oo laynayo. Shucaybna aad ayuu u xanaaqaya wuxuu leeyahay aniga ayaa ku siinaya waxaada hooyadeeda sidaan ha kula dhaqmo. Shucayb ayuuna ku leeyahay waxaan kaa rabaa inaad ii keento jaakadkayga daroogada.
gaangiskana meesha ayay ka dhaqaajineen. Shucayb hooyadiisa aad ayay uga xumaanaysaa midaani, waxayna ku xanaaqaysaa wiilkeeda ayadoona meesha ka tegaysa. Shucayb aad ayuu u qeelinaya, aad ayuuna u muruganayaa sida ay kula dhaqmeen gaangiska. Wuu soo xanaaqayaa, wuxuuna imaanayaa kafateeriya ay ka shaqayso gabadhuu aad u jecel yahay. Marka uu imaado kafateeriga, gabadha ayaa arkayso, waxaan u imaanaysaa asiga. Waxay ku leedahay maxaa kugu dhacay? Wuxuuna u sheegayaa in gaangiskii mudnaa oo maanta gurigiisa soo weeraray, hooyadiisna dhibaato u geystay. Waxay ku leedahay muxuu kaa soo doonay? Wuxuu u sheegayaa in uu u hayay jaakad darooga ah, jaakadkaasna gurigooda dab oo ka kacay, jaakadkiina uu la'yahay. Waxay ku leedahay maxaan haddeer aan samaynaa? asigana wuxuu u sheegay wuxuu sameeyay in uu la'yahay. Waxaa arkaya managerka, wuxuuna weydiinayaa shaqaalaha, wuxuuna ku leeyahay muxuu ninkan halkan ka soo doonay? Shaqaalahan waxay u sheegayaan in uu u imaaday gacalasidiisa. managerka ninkan aad ayuu u nacban yahay, wuxuuna soo aadayaa xaggooda. wuxuu ku leeyahay maxaad halkan ka soo doontay? asigana wuxuu ku leeyahay 5 daqiiqo isug, waan ka tegayaa meeshan. managerka wuu ka ogolaanaya, waana ka tegayaa. waxay ku leedahay maxaan haddeer aan samaynaa? wuxuu u sheegay inuu doonayo inuu ayada halkan oo ka kaxeeyo. wuxuu leeyahay ninkaasi waa nin halis ah, waxaa laga yaabaa adiga inuu ku dhibaatay, mana ogolaanaya inay dhibaato ku soo gaarto. sidaa darteed waa inaan meeshan adiga kaa kaxeeya. managerka oo hadalkooda maqlaya ayaa xanaaqayo, wuxuuna soo aadaya dhankiisa, wuxuuna ku leeyahay 5 daqiiqo waa kuu dhimaato, waa inaad ka tagtaa meeshan. managerkii asiga gacan qaad ayaa ka dhacayo, kadibna meesha ayuu ka soo tagayaa. waxaa ka soo daba cararayso gabadha, wuxuuna soo raacayaa gaarigiisa asagoo xanaaqsan. gabadhiina waxay soo fuulaysaa gaarigii, waxayna ka soo tagayaan meesha. intay jidka socdeen ayuu gaariga hal mar wuxuu qabanayaa bareega. markuu bareega qabto ayaa waxaa meesha ka soo muuqanaya wiil yar, wuxuuna ku leeyahay sidoo ku soo fuulay wiilkan gaarigeeda.